inta howlgabka laga fadhiisiyo oo saraakiisha cusub ee dalku wax soo baray ciidanka loo dhiba markaad lahayd Saudigi lahaa hebel baa ciidanka hogaamiyo hebel ciidanku kama maarmo Saudigi lahaa 30 sanadood ciidanka qaranka jeceshahay iyo lilmada iyo xaaskeed qubaysaa waa been iyo propaganda way maalintii ciyaalka sool suuqa lala dhacay Hargeysa waa laga mudaharaaday maanta markii ciidanka qaranku jabana waa laga soo banaan baxay bal labada banaan bax maxaan isku qabadsiinaa maxaan ku micnaynaa xukuumadda ka dambayso labada cisho soo saartay war dadka gobolka ka soo jeedi dagaal qaraar ba dhacay haddana maalintii dhawato la rag kamid ah rag ilaa garow u yaala aqli waxa la waayiraahda war wixii na dhex maray war wixii nagu kala dhacay war balaynu xaaladda dejino askarta dhaawacaana walaalayaal reer Soolow idinku dhaawiciinaba ka badane dhakhtarna uma haysaan sariir dhigtaanna uma haysaan walaalinta dhaawacay soo dhaafiya waxaan aaminsanay ragga odayaasha inay qaadan lahaayeen oo aqbal lahaayeen haddii aqliga saliimka loo saaro taa bedelkeega waxa la abaabulay in salaadiintii nabadda dooni lahaa haddii xal la doonayo in salaadiintii ma aragtay xaaladda dajinteeda ka howlgal lahaa in ma aragtay diriis loo xidhaa diriiska uu suuqa Hargeysa jooga xidhaa muxuu ciidanka qaranka u taraya waxba u tari maayo diriiska uu suldaani xidhaa muxuu ciidanka qaranka u taraya waxba u tari maayo laakiin waxa uu taraya haddaynu golaha iyagu saaka fadhiisto oo uu yiraahdo baaqiga hadhay si emergency ayaanu waxaanu ugu kordhinay miisaaniyadda qaranka ay ka qaataan baan mushaarka u laban laabnay waanu 3 laabnay waanu 4 laabnay waxbay tar lahayd lama diiwaan gelin askarta dhimatay iyo reerahooga bishii way gaadhay Soomaa mushaarka yaa u qaadiya lama oran reerahooga si loo gaarsiinaya la isma weydiinin laakiin in shacab la abaabulo lagaga dhuunto waajibaadkii markay xaaladaha ay kana dhacaan jananays casila qaar bay istoogta madaxweynayaal bay casila halkii madaxweynaha laga xisaabtami lahaa golahan la soo joojin lahaa ayaa waxa la keenay in nidaam reer lagu qariyo fashilkii dhacay oo heshiis baa golaha la keenay heshiiska la keenay wuxuu marada ku qabanayaa wuxuu asturayaa wuxuu qarinayaa in la isla xisaabtamo wax la isweydiiyo ayuu meesha ka saaraya haddaan dalkan lagu xisaabtamayn fashilkii dhacay haddaan lagu xisaabtamayn mas'uuliyad darradii dhacday haddaan lagu xisaabtamaynin khalad kasta iyo ceeb kastoo dhacday maxaan dal ku ahaanaynaa maxaan qaran ku ahaanaynaa maxaynu dadka kula macaamilaynaa dambiga ugu weyn ee inaad dal Soomaaliland la yiraahdo jira lagu dhiibo xuduudihiisu dhammaystiran yihiin oo qayb ka mid ah goyso haddii xilka lagu waayo maxaa lagu waayaa haddii in ciidankii qaranka qalabkiisa isagiiba uu baabiyay dambi lagu waayo dalka taliye islaayeen Ahmed Ismaaciil Sabatar professorkii xisbigu furto rubu furto wanida maantu doonay inuu kaltaka doorashooyinka soo socda ka qayb galo tala lagama siinin lagama maadarta lama tashanin qoorta la gooyay qoorta ayaa la gooyay madaxweyne Muuse markii uu waxaas dhacay muu garanin dalka dib iskugu shaandhay xukuumadda goboladii dulmiday wuxuu celi kuraasida qaranka muu garanin halkiisii buu ku haystaa laakiin waxa ilaahay maadiya inuu madaxweyne Muuse labadii jaamacadood ee waaweynaa ee uu mucaaradka u diiday ee uu xildhibaanada u diiday inay kala qayb galaan inuu ka xishooday uu ka dhuuntay inuu ka qayb galo waayo laba erey buu ku celcelin jiray labadii ereyna waa laga soo xidhay erey wuxuu ahaa taaka dhula ogolaan maayo Soomaaliland taakadii og baa la joogaday taa waa la soo xidhay ciidan uu dadka ku abuus gareeyana qalabkii 30 sanadood la ururinayay la dayactirayay la dhisay gacantiisu ku baxay hadduu kaasi dambiilo noqon waayo cid kale dambiilo noqonaysa ma jirto cid kale oo loo raaci karaayo la eedeyn karaa ma jirto hadduu kaasi dambiilo noqon waayo hadduu ka ciidanka hogaaminayay ee mushaarkooga dulmay hadduu dambiilo noqon waayo cid kale dambiilo noqonaysa ma jirto dambiilo ma noqonayso haddii maalin walba waxa qabiil gaar ah ku soo shiro ay qaranka ka shaqeynayso dee qabiilada la wada yahay reer la wada yahay reer ku khasbanina ma jiro reer ku khasbanina ma jiro laakiin dantii aan wada qoranay dastuurkii hadii laga boodo oo lagu xisaabtami waayo yaa lagu xukumayaa dulmiga iyo baadilka ka soo burqanaya guriyada ummadda inay hogaamiye la doonay cidna lagu xukumi maayo waxa ku soo gaabinaya Ahmed Ismaaciil Sabatar shalay buu intuu xamar iska sharaxay 8 cod buu helo uu ka soo carro ka dhigay abtigay maantana ma rabo inta la afduubay inuu iska carro haddana iska tago ma rabo
warmaanta dadka ugu ku dhageysanaya kaalayo gobolka shiri kaalayo mustaqbalka ummadan hogaami kaalayo dereeraha shiraye inagu adiguna gobolkan baad siyaasiyad cod doonayse kaalayo shiriyo wax la iska weydiiyo xaaladda taagan baan Axmed Ismaaciil Samatarna aan ugu baaqaya kaali wax iska weydiinay balle xaaladda taagan waayo maalin walba annaga intay afar nin oo ilmaadeer isla xisaabta ka diidaan ee wax kasta oo lagu tabcay ciidanka tacabkiisa ugu badan tahay riyaal kayn baa lahaa isagoo taanki lumin isagoo taa ka dhino laga qaadan ayaa habeenaya maalin lagu heesayay dilaal noo dhuuntayow soo dhaadhac dilaal noo dhuuntayow soo dhaadhac war ninkan maxaa maalin loo oran waayay kelmad qabyaalad baa idin haysa macalgabigiina su'aal ma weydiisan reernima idin haysa xanuun baa idin haya dadka kala necab oo runta diidan baa idin haya runtaa sheegaynaa maanta laakiin halkan cidna cid hostage kuma aha halkan cidna cid kuma haysan karto maalintii jimciya dagaalku dhacay ee gobolka soo la qabsaday ee saanadii la qabsaday ayaa nima darajo wata anigoo halkaa fadhiyo murugaysan oo yaaban ayaa halkaa igu yimaadoono maxaa lagu xili waayay ama lagu dili waayay wuu maqlayay ka golo amniga haysta waxaan ku yidhi war darajaradan xidhanta adeero eed aniga igu leedahay maxaa lagu xili waayay lagu dili waayay maad qaranka ku difaacdi darajadii qabyaaladda laydinku xidhay darajadii maad aragtay sida reernimadaa laydinku qaybiyey ayaad aniga ilaahay mana saabaan ku bal ilaahay baan idinku dhaariyey kuwa booliska jananada haysta eega daahir muuse abraar oo 93 ciidanka bilaabena gaashaan la dhixu jooga oo aninka aasa soo faqa xilfadiisu gaadhay war ma taasaan qabyaaladahay ma taasaan qolonimahay ma mayn dalka haduu burburaawa awdal shaqo kuma leh soolna shaqo kuma leh kuwii dumiyay halkan ay joogaanoo gudoomiyaal bay yihiin boqorayda yihiin wasiirayda yihiin madax bay yihiin waxaan ku soo gabagabaynayaa in badan baa been la shubay in badan baa maaragta la kala dhuuntay la kala dhumay run baa la sheegaya ninka aniga ay dili karaana galabta yimaado xabada ay ku dhuftay askarta la soo diray hoolka ay ugu imanaya waxa weeye Axmed Ismaaciil Samatarna wax leey Axmedow kaalay oo boorama kaalay waa shirayna waxba is weydiinana haday reer soo shireen oo qasab la isku marsiinayo doorashooyinka kaalay baa leey xildhibaan haddaan su'aal ku weydiiyo dadka xildhibaan dadka maanta dhageysta hadalkaagu waxay soranayaan maxamed abiib shalay toole markii golaha wakiilada la doonayay cali xamuud waxa uu ahaa galab ka soo jeeday qarato raacay maxamed abiib waxa uu cali xamuud la dooni waayay oo maanta la doonayo urur ama xisbi maxay tahay علي حمد مشرح ماني حلبان محمد خضر دايما مشرحه وانا دكتي فرطونيكو كبدي محمد خضر بوا هاي سؤال شاس يعني وصح محمد خضر بوا مشرحه حلبا واحد قاعدنا يسوس عليك